وهجاج إن أنتي نينا دقيستي شالي وحن إذا عضها يجا كشجني إن مسؤولين تدلك السعودي العربية أي كوات كيسانا يان طلابو أي كحديدين سمع عضها مساجد أو أي أمرين إن أن لقى مقلين مال كبحسن جودها مساجد وزارة arrimaha diinta ee dalkaasi ayay usbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqday in dhammaan sameecadaha masaajidda codkooga la gaabiyo oo aysan ka badan 3 meelood hal meel heerka ugu sarreeya codka sameecadahaasi arrintaa oo ay u cuskatay cabasho ay sheegtay inay uga timid dadweynaha dalkaasi balse dad badan ayaa go'aankaasi dhaliilay walow dowladuna ay dadkaasi ku tilmaantay kuwa cadow ku ah boqortooyada Sacuudiga haddaba maxaa ku jaban in codka masaajidda ama sameecadaha ku xiran hoos loo dhigo arrintaasi ayaan wax ka weydiinay Sheekh Maxamed Cumar Dirir Axmed Badr ayuuna u waramay الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد marka hore horta in kor loo qaado adaanka iyo aqoonida iyadu waa sunno aad u adag oo ummadii ku ogaanaya waqtigii sidoo kale khudbada in iyadana jumcadana kor loo qaado oo dadku ay dhageystaan waxa kale oo jira oo iyaduna in kor loo qaado ku xiran salaadaha faralka ah waxa laga maarmaana dadka tukanaya inay arkayaan imaamka muuqaalkiisa inay arkayaan ama ay maqlayaan codka waayo labada waxa ku xiran waxa la yiraahdo mutaabacatu imaam imaamka raacidiisa oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inma ju'ila al-imam liyutamma bihi imaamka waxa lagu talagalay in lagu daydo ku dayashadu laba mid bay noqonaysaa sida loo raaciyo ee sabab noqon kartaa waa in isagii la arkayo ama cidii ku sii xidhnayd la arkayo waxa suuragal ah inaan labada midnaba la arkaynin laakiin masaajidka buuxsabo banaanka lagu tukanayo sidii dhacday maalmihii dhaweydba dadkuna ay kula socdaan codka ay maqlayaan marka masaajidkii buuxsamo ama xaramkii buuxsamo marka qofkii hadduu muuqaalkii arkaya ama maqaalkii hadalkii maqlaya mutaabacadii waa suuragal laakiin mar waxa dhici karta uu dadkii arki waayo codkiina maqli waayo markaasoo kale la socodkii suuroobi maayo sidaa daraadeed in la kor qaadaa marka laga maarmaan bay noqonaysaa laakiin sideeda kale waa wax iska wanaagsan oo fiican inay dadku dhageystaan waajibse maaha waxa jiroo kale ama kulli faaqan baynu odhan karnaa hadda dee ummaddu horeba way u dhageysanaysa qirada qur-aanka oo baxaysa laakiin waxaa la odhan karaa wax soo kordhay baa isagu riixayo dee iyadoo heesi iyo durbaanadii meelo laga qabanayo maxfallaha la isugu imanayo oo la dhiirigelinayo in qur-aankiina la yidhaahdo ha la aamusiiyo taasaa arrin kale ah oo laga yaabo in dee ujeedo kale ay ku lifaaqan tahay in macsiyadiina la dhiirigeliyo baara meelihii lagu tumanayay durbaanadii kor loo qaado isla markaana la yidhaahdo ha la aamusiiyo salaadihii faralka ahaa ee la tukanaya codkii baxayay aan la qaadan karayn baa taas dowladda Sacuudiga waxay sheegtay in sababta ay u joojiyeen ay tahay in ay ka soo sheegteen qaar ka mid ah mujtamaca oo xilliyada carruurta ay jiifaan oo kale dadka waaweyn oo kale ay dhibsadeen taa ma isleedahay gundhig waa looga dhigi karaa in mikrofoonada la damiyo ama la gaabiyo maya isma odhan karo masalan salaatuleylka oo kale salaada habeenkii dadku marka ay hurdaan waa suuragal oo dee dadkii way hurdaan laakiin waktigan 5 salaadood la tukanayo waynu ognahayo dee dadku ma hurdaan amaba ummaduba inay tukataabay tahay waktigaa horena cid ugama sheegi jirin oo ugama caban jirin iyaguna hore umay sheegi jirin waxaa laga yaabaa dadkay sheegayaan inay noqon kartaba dadkan ay faraha badan ay dalka kusoo daayeen ay leeyihiin waa dalxiis kuwaasun inay kasoo yeedhayaaba suuragal baan odhan karaa intaad ka warqabto hadda ka hor ma dhacday arrimahan oo kale oo muslimiinta dhexdooda ama haddii ahaan lahayd muslimiinta hore ama xilligii dhexe ma jirtaa arrimo noocan oo kale ah oo lagu taliyey in salaada hoos loo dhigo salaw khilaafiya weeye kolley culimaduna way ka waramaan waktiga habeenkii la hurdo oo kale salaatuleylka in hoos loo dhigaa inay fiican tahay masalo culimadu de ay ka waramaan weeye laakiin mulaabasaadka waxyaabaha hadda dareenka muslimka kicinaya waxa weye arrintan waxa ku xeeran bedelkan khaliijka ka soconaya ee ay ka wadaan reer galbeedka iyo aragtidoodan islaam nacaybka ee soo biiraysa iyo dhalinyaradan khaliijka qabsada ee laga yaabo inay u dhega nugul yihiin ee u heelan yihiin arrimahaasunbaa soo biiray baynu odhan karnaa hadda dadka qaar gudaha dalka Sacuudi Carabiya way ka soo horjeesadeen arrintani maadaama adigana aad sheegtay in imaamka ay tahay in la maqlo in sameecadaha aad loo dallaco dowladda Sacuudiga ay sheegtay inay tahay mid dad badan ay dhibsadeen dadka maxaa la gudbaan islaada markaa dadku sidaynu ogsoonnay ama maalintii dhaweyd baaynu la soconnay dee khudbadii markii la maqli waayey dadkii qaarkood way iska dareereen qaar kale jumcay iska tukadeen qaar kale meeshii bay iska sii fadhiyeen wareer baa ka dhacay iyaga laftigoodu waa kuwii dib u noqday saan sulayeen oo jumcada iyo ciidaha ayay kasoo reebeen oo waxay dhahan jumcada iyo ciidaha kor baa loo qaadi karaa marka dee la jiifiyaano bannaan bay noqonaysaa kolkaas saa u eegto
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed cumar dirir waxa uu u waramayay wariyaha BBC-da Axmed Badar halkaad nalaga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da saad la socotaan bishan maanta 28 ahayd 23deedii axad aynu soo dhaafnay ayaa dawladda Sacuudiga waxay qaanuun ka dhigtay in masjidka qiraa'adiisa iyo salaadiisa banaanka aan laga maqli karin ninkii qaanuunka ay soo saartay khilaafana la ciqaabay warka asaga waad akhrideen ama waad dhagaysateen ama waa la idin sheegay Sacuudigu hadda waxay yihiin iyo waxaan ka qabo Soomaali way ka dharagsan tahay war la qabo xiisa malana waa la yiraahdaa waxa laakiin aan doonayo inaan darisiyo waxa weeye qaanuunka asaga ah raad khatar ah ayuu muslimiinta ku yeelan doonaa gaaladu waxay aaminsan yihiin in laba xarumood muslimiinta laga xukumo Azhar iyo Makal Mukarrama wadaadaha Azhar jooga waxay soo saaraan wuxuu saameeyaa muslimiinta dunida ku nool oo dhan kuwa Sacuudiga jooga waxay soo saaraan arrin diineed ana wuxuu saameeyaa muslimiinta oo dhan marka mas'alada ayada markaad miisaamayso waxa la rabaa thiqalka ay muslimiintu ku yeelan doonto iyo macaalaadkeeda dambe in ninka wadaadkee ka hadlaya uu qoraansada la doonayo in hooskiisa waxaan ka badnayn uu fiirsho waa maangaabnimo iyo muslimiinta oo u naseexaynin iyo ikhlaas darro way haddaan soo laabto waxaan leeyahay masaajidu waxaad ogtihiin inay yihiin goobaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray goobta ugu fadli badan khayrul biqaa'i مساجدها وشر البقاعنا الأسواق قوب مسجد كخير بدن إله سبحانه وتعالى ما أبورين قوب شر كشر بدن سوقنا ما يجفت فرهين تا يرنبالك يا رسالة كبحيس مسجد كوحل دونيا درسكو إنه كفائديست أو درس كقادو أو أمد قادو dadaalka hadda ay gaaladu wadaan iyo qoliyaha gaalada u adeega dabadhoonkooda waxa weeye risaalada iyo fariintii masjidka in lagu soo koobo labada darbi sama loo faansanaya fariintii masjidka ka baxaysay iyo ilaaska ka baxayay ummadda gaadhayay ya waxa la rabaa in lagu soo koobo labada darbi oo masaajideenu ay noqdaan macaabidi iyo kanaa'isti yuhuuddo kala ay noqdaan nasaaradu hadda waad aragteen xiliyaha iyagu ay salaada waxay ku sheegeen ay leeyihiin gambaleel bay garaacaan kadibna juuq dambe maqli maysid masjidkeeni maxaa laga rabaa xilliga salaada in laga aadamo juuq dambana aan la maqal gambaleelkii nasaaradii yuhuudda iyo aadaankeenu waa isku mid kadibna fariin kale iyo wacdi kale iyo nashaad kale iyo qur'aan iyo diin masjidka ka soo baxdo dambo la maqlayo ma ay jirto waa mamnuuc ninkii codkiisu albaabka dhaafana bangaani baa taqaana inaad fahanteen baan filaya waa risaalada hadda socotay dunida hadda laga wado ninka aan sidaa u fahmin qadiyadda wax badan baa u dhiman wax badan ayaa u dhiman waxaan rabaa inaad fahantaan inay ujeedadu sidaa tahay maxaa ku tusay waxa lala dagaalamayo waxa weeye quraanka iyo qiraa'ada iyo codka iyo nashaadka dacawiga ee ka baxaya masjidka ee saameynaya dariska ee saameynaya darisku xigeenka masaajidda isli ku yaala kuwa u dhawaaq dheer masjidkana kamida asagoo sidaa u dhawaaq dheer 100 mitir markaad soo gaadhaad maqlaysaa qiraa'adiisa mata misama
waddada masjididaayi annaga noo dhaxaysa markaad soo gudubto ayaad masjid bilaal maqlaysa imaamka qiraa'adiisa waddada intay inoo jirtaa anay qiyaastay 120 mitir maxay idinla tahay 120 oo weliba makarofoora hawshii baa loo ciil qabaaba oo la yidhi weli way badan tahay maxaan rabnaa intaan kama bixi karo mana dhaafi karo fariinta iyo risaalada wadaan maxay ku cileeyeen hawsha ayadaa waxay yidhaahdeen dad baa dhibsanaya tanqiixul manaad aan dhiraandhiro iyo cillada iyo sababka wadaadda iska allow sahla warkay sheegeen oo carbeed iyo kuwa dhintay iyo kuwa nool baa ku mashquulin gaaladii reer sacuud waxay yidhaahdeen aadaanka iyo qur'aanka iyo risaalada masjid ka baxaysa dad bay dhibaysaa waa intaa waxaa dhici karta dad inay dhibsadaan waayeel carruur nimaan xalay seexanin hadihi alcilla qaad fahanteen baan u malaynaya sheekadu waa intaa hadday daacadnimo jirto diin laydiin sheegayo oy run tahay maa la dhaho intay dhibayso in ka badan ayay qiraa'adu iyo ducada meesha ka baxaysa iyo qur'aanka iyo salaada ku raaxaysanayo ay dheefinaysaa soo ma ahayn aw jaamiciya geedi oo xasaan baa matalan dhibsanaya ilaahay ma qadaro 100 ka badanna way u bogayaan oo way danaynayaan oo ay ku raaxaysanayaan maxaa keenay qiraa'adaanada iyo qur'aanka iyagii faasiqi dhibsanaya ama gaalkii dhibsanaya in la tixgeliyo oo ummadda muslimka ahay tahay la tixgelin waayo oohintu orgiga ka weyn ma maqasheen oohintu orgiga ka weyn waxaad diidan tihiin ma makarafoon baa mise waa codka masjidka ka baxaya xaqiiqadu waxaa weeye waxay diidan yihiin codka masjidka ka baxaya maxaa u daliila waxaa uu daliila makarafoonka hadday diidan yihiin waxay odhan lahaayeen imaamku masjidka gudihiisa makarafoon kuma tujin karo ummadda makarafoonna lama isticmaali karo siday yidhaahdeen qolihii dabaallaha ee jadiidida la odhan jiray makarafoon lama isticmaali karo hawshu ma aha oo waxay u oggolaadeen qaybta gudaha in lagu isticmaalo makarafoonkii maxaa la diidan yahay marka codka baxaya ee dhaafaya derbiga masjidka wadaadda allow ma tahay mise maa cilladu intaas waa intaa wax kaloo meesha yaalla ma jiro in la yidhaahdo masjidka gudihiisa cod ka bixi karo qur'aana ama salaada ma jiro qaanuunna laga dhigo ninka hawshaa khilaafaan la ciqaabo وكفر وانا خروج من الملة الإسلامية شيء أصوغ مسألة فقهية ونقول اسكو خلافي كرو كقانون ملزم للأمة العامة هذه اللي قد وكفر بسبب الدلية تشريع هي قانون عامة وأمة الله حكومة أي لقد شيء بنانا أما سنة دينية qiraa'ada iyo quraanka iyo salaada iyo acmaasha masjidka ka baxayso inay banaanka u baxdo oo darisku uu ka faa'iideysto oo qiraa'ada la maqlo waa arrimaha diiniyada muslimiinta caamka og yihiin kamid ah laakiin diinkana waxa lagu dowgalaa in badan oo kamid ah nin boqora ama jaa'ira ama xukuumad diinna sheeganaysa xaqana salkana xaabinaysa سيدنا عمر أيا زياد بن حدير وحكيدي أتدري ما يهدم الإسلام ما تقانا إسلامك وحيابها الدنيا ما يقولي وأشيري حرزلة عالم جدال منافق بالقرآن وحكم جائر وفي رواية وأئمة مضلون وفي رواية وحكم الأئمة المضلين صدح با اسلامك الدنيا او باباشا عالم دينك يقانو قفي
oo asagoo la wax hagaaji ama toosi bariiqday kadibna gafkiisu ummad badan ay ku halaagsantay ku raacday wayna badan tahay nin quraanka yaqaan oo xaqna munaafiq quraanka kugula doodaya waa mushrik ilaahay buu ka furtay waa diin laawi quraankana waa yaqaan aabihi hooyadii baa soo baray xumaantiisii iyo kufrigiisii iyo diin la'aantiisii buu u daliishanaya kitaabka quraanka adugu kugu haystaaba ayada daliishateeda kale soo dhufanaya sanku ka galeynay wajidaalu munaafiqin bil quraan wa hukmu al-a'imma al-mudallin wa hukmu jaa'irin iyo boqor jaa'ir oo xadgudub ah oo diinka ka fogaado baal maray oo ummadda u taliyo diinta kaga ciyaar sida darteed taabiciga loo rajaa al-Qasim ibn al-Mukhaymira wuxuu yiri كان الحجاج بن يوسف الثقفي ينقض عرى الإسلام عروة عروة لكن الله شيء جريديس يحول حجاج وحوها نين دمية قضبضة يأصوش الدينيات بو حبت قدومين جري مد بو قادش رجح بو قدومين جري زلة عالم وحلو مثالين كرا أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقيه تقانين با جريديس وحلوصو الشيخ سفيان الثوري مركز الحمد لله كان أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة إلهي باب مهضل أبو حنيفة إنه مدى نافيي أما مسألة اجتهادية لكن إمامكم حوار كأبو حنيفة لما يشهدين سوين تاي نصر يقول المسلمين تأطمد وعالم قفي جري حمانا أنو قصدي جرينوي انت لقى ورقبه ومع ذلك حوار كأنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة أو زاعب أصلا سيدايين سادرتين صحيحين كوحات كنت قانا كم مرتين سيدنا أبو بكر بوحال ليدي إسلامكم إنت لك بنوت تاغنانا يا ومنهج قيمها بدن السافقة إيه الدين تان وناكسن إيه النبضن إيه سنة إيه خير كان إن أنت لك بينوس وشريسا وحكوي لي قبل سؤاشا ويديسي أنت أي مدحذي نتوصنتها إسلامكم وحيدين توصنان أنت مدحنين يتلسكن أي توصين الدين كقرق مايا مالكي مدحض فسهادان أما النظام كسياسي وإذا كفساد دين اسمها يسار سيدنا عمر باسدا سوكل كو جوابي علي با كو جوابي ولذلك فرق يا طوائفتي أحزابتي انت بدن كهل النظام كسياسي إلا هجاجيو أيا كغير كو رجيستا التصفيه والتربيه التصفيه والتربيه وحكا غير نمانك انت بدن كهل إن لا هجاجيو نظام كسياسي ومدى معموليه ummadu haday hagaagto hogaankeedu hagaago u tooso diinta shaqaynaysa nin walbo khaldan ayada lagu soo dabaalaya awood ma la tiri baa la isticmaalaya kitaabka loo adeegaya asaga taylay walidaalika fasaadki reebana umayya ay 100 sano wax ku dhow soo wadee intoodii fasahatanayd baynu ka hadlaynaa khilaala sanatayn buu ku saxay Umar ibn Abd Aziz nidaamkii siyaasiga ba hagaagay 2 sano iyo bar buu ku saxay 60 sano wax la hagaajin waa culimadii baa dhoobnaa saxaabadii baa joogay islaamku waa amiran yahay laakiin hogaanka siyaasiga haduu ka halaabo talaw farahi ka baxaysa walidaalika waxa muhiim ah in awood lagu bixiyo taliska muslimiinta si loo hagaajin lahaa taa macnaheedu ma aha jawaanibta kale inaan bahdilaye waxa weeye sida ay kula muhiimsan baan tilmaamayno waxaan rabaa hadda waxa laga hadlaayay qiraa'o salaad jahri ah oo cisho iyo maghrib iyo fajr oo kala ah ama jumco kala ah yaa la yiri qiraa'adiisa banaanka u bixin ninka u bixiyana waa ganaaxan yahay waa la xirayaa ama waa la ganaaxaya waana qaanuun shayga asaga horta waa bidco bidcana aniga cindi waa bidca kufriya تشريعان يا تصنين كاسي بدعة كفرية كون قريس لأن إن البدعة وحقوق في إن أتجاهه قاعدة البدعة واتقانا محل سكوغا هدي حل النبي محمد يا الصحابة أوجري المقتضي وحكينا أما كينا يا شيء إلا يسكت ديده هدو تشري مانعنا أوسن شيرين
in laisku diidaayo shayga asagaha waa bidco in la sameeyana waa sunno ayagu maxay yidhaahdeen dadka qaarkii inay dhibtaan laga yaabaa oo maxaa jira dad xanuunsan baa jiri kara kanaa jiri kara xilligii nebi maxamed iyo saxaabo dad xanuunsan ma jirin masaajidka daris ma ku xeeraa idan muqtadiga ay sheegteen lilmanci inay shayga manciyaan oo diidaan cillada iyo sababka keenaya xilliga suubanaha ma jirin xilligii saxaabada ma jirin wadaadda allo mise ma jirin waayeel ma dhoobnaa dad xanuunsan ma dhoobnaaye masaajidku daris ma laha ku xeeran nabi maxamed iyo haweenkiisa darfaha ma ka daagnaaye qolyo xanuunsan tif bay ahaayeen waayeel baa tif ahaa haweenaan salaad ku waajibinoo xuyadoo nufasaa tif ahaa carruur baa dhoobnay cillada ay sheegeen xilliguu suubanaheennu iyo saxaabo way jirtay wax maanica oo nabigu hawshaa inuu manciyo u diidayey oo hortaagnaa miyaa jira ma jirin haddaba hadduu muqtadigi jiray fi lcahdi alawal maanicna uusan jirin in la khilaafaayo waa bidco sida nabiga iyo saxaaba in la yeelana waa sunno bidcadii haddii la taqniiniyo oo qaanuun mulzam lilumma laga dhigana kufrigu isu bedelaya bidca kufriyuu noqonaya diinka lagaga baxaayo waa aniga aragtidayda nin walbana wuxuu qabo akhre la tegayaa nin walbana niyadiisa allah u raaco ninka diinka doonaya inuu guulaysto allaha niyadiisa u raaco kii ka xunna meeshuu doonaha ka baxo inaad fahanteen baan filaya tusaalooyin yar baa idiin soo qaadi oo ku saabsan salaadaha sunnada ah mar raba kama hadlahayo salaadihii waajibka ahaa ee nebi maxamed oo la jahraya ee saxaaba la jahrahayeen ee darisku ay nabiga codkiisa ka faa'iidaysan jireen ama ay suuradaha ka xifdiyi jireen sunnooyin baan rabaa inaan tusaalooyin ka soo qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam sunanka saad ku soo marteen habeenaha ka mida wuxuu soo maray asagoo intuu gurigiisa ka baxay socda abubakar gurigiisii buu soo maray abubakaroo salaatuleyl tukanaya qur-aankana hoos u dhigaya laakiin codkiisii la maqlayuu nabigu soo maray waa ka soo tegay cumar buu haddana soo maray oo codka cirka ku lisahaya meesha u dambaysa dhawaaqahay waa iska soo tegay masjidkii buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar iyo nabigu waa isu yimid nabiga yidhi abubakarow haddee waxaan ku soo maray adoo codka gaabinaya maxaad codka u gaabinaysa wuxuu nabi allow laqad asmactu man naajaytu allihii aan la koodayeen baryahayeen caabudahayey waa i maqlahayey dadkana dan kama lihi cumar adugu maxaad cirka ugu tolaysa wuxuu yidhi nabi allow uuqidu lwasnaana wa adrudu shaytaan wa axtasibu bihi wuxuu yidhi mid dadka jiifana waan kicinhaya maxay u jiifaan shaydaankana waan caydhsanhayaabao qur-aankan ku gubaya waxa shaydaana meelaha joogo dhan baan kala fiijiraya intaasna ilahay baan ugu dhowaanaya riwaayo kale nabigu bilaal buu soo maray oo qur-aanka sidii qolyahan ulqeeda u akhrinhaya suurad buu aayado ka soo qabtaa suurad kale ku daraa aali cimraan aayado ka mida kuwa baqara ka mida kuwa nise ka mida ancaam yahuudi yuunis kuwa ka mida qur-aankiiba isku barxaa wuuna kaxeeyaa bilaal waadu maxaa la yidhi waa sidee qur-aanka maad suurad u wadid sida rabbi u dejiyey maad ku wadid alaabtan aad ku burgoynaysa waa baxay wuxuu nabi allah waa kalaamun tayibun yajmacu allahu bacdahu ilaa bacdin buu intaa markuu nin walba qaabkaa u dooday nabigu wuxuu yidhi abubakarow irfac min sawtika shay-an abubakarow markaad salaatuleylka tukanayso qur-aanka kor u yarqaad cumarow اخفض من صوتك شيء أضو عركة كتو شيء يرقابي بلال وأضو اسكوضو كلكم قد أصاب كلكم قد أصاب وصلاة الليل درس با عمر ليه هاي أبو بكر نمحو ليه درس نبي وضد مر هاي با مقل هاي نبي مردين واد خلطانتي شيطان كان إلا فيجيو وقرآن كان لقوقو وقوة شيفر درس كآلة توسيو waa qayb maqaasida shariicada ka mid a iyagoo gaaladuna waxay rabaan iyo gaala raaceentu derbiga inuu qur-aankeenna ku ekaado tusaale kale nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam
يا هبينها كمدة مسجد كالحرم بكتو كذي مسجد الحرام مكة المكرمة عند الكعبة حديث كي سنن كتقرنا يسمى عند أحمد أم هاني بكشة كانيس وحيتي كنت أسمع قراءة النبي وترجيعه بالقرآن وأنا نائم على فراشي وأنا نائم على عريشي حق النبي كنت كان هيا في المسجد الحرام وعند الكعبة قرآن كسيه قراءتي يا مغلى هيا أم هاني بنت أبي طالب وقري داش كيس دوشي سجفت وأنا نائم على عريشي حديث كمركي ورنيزو ويلا أي أطها يميل يدا شيء يتابع كلي وشيغيسا وحيتي وأنا نائم على عريشي هذا قري وشيغيسا قرأ النبي حقيقة بحيسا مسجد صلاة تكون محيطة صلاة سنة قرآن كيسيات دقيسانية حافظة فوق هويني درست بلبلة دوشات شيفتا يا دقيسانيس ولو نبي القرآن كأنه غنين يو علعلي أو الركادين هي إنه شيكت إسكدا نهنه معها وصلاة سنة وحا والنبي السيدة يليه درس كنا دقيسانيا هوينك شيفي وتوسل يصوبونه عليه الصلاة والسلام إليه وأنا نائم على عريشي هذا هذا نوع الدين اللي يدين كدقيا هي سنة شيكتين صلاة الصبح إيه عشاء إيو جمعة إيو مغرب هداد الباب كب حسان حقيت جوكتا بنقانا ويرون تاي ميل كدران بالإسقينية وحاجر في المدينة المنورة نين مركو صلاة الليل كتوكانا يقران كقرب كلس معاذ بيدرس أهاي ابن جبل صحابي أعلم الناس بالحلال والحرام الليل يعني معاذ بواقي دنبوايا نينكي مركز ما فعل الذي كان يطرد الشيطان ويوقد الوصنان ونينكي الشيطان كان نقف في تشنشري ضدك جيف إلهي هالماسنة كعنجر حقيقة بحي وحالي وحنوسيها ماذا كور قبل وحنوسيها وإلا كان بوقا واقعي انتو سي سعودي أيو وضد وحو البويا لو لف أما بر أما قضحة أما قشن ومسلم ديبو كقاضي نينكي بقوتو قواب بوضي إلهي واعافي هوش سوكو صلابت نينكي سيدا قرآن كأتو للشري محيدا صحابه ما فعل الذي كان يوقظ الوسنان ويطرد الشيطان وأمان إن هدى لقاك عشي حلقة أو ربي أدنى هالمامن أو قرآن كأن لتشي في ويدو شيطان كان لقاك في شيء أيام من المقاصد الإسلامية هذا محلي شيطان كان في جسا روح تشيفنا أتوسان هي حبس باتكم مضان إيسان هل كاسي هذا مريسان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وصوها بين قرقس اسكتشوغا يوحون مغلى القرآن ديرو كبحايا مسجد قدهيس صلاة الليل ودقيست النبي ودقيستي آيات النبي قوها المامي وحلو القرآن كأخرنها يقوها في يكون خصوصتين كقراءة ديس مركز يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسخطتها إله هبل حريصه إمسوا آيات أن حال مركا أنو أخرنا القرآن كأن رافع حسوسي حقيقة كنت قرية مسجد النبوي صلاة الليل يا مغلى قراءة ديسي قرق النبي محمد وكب حسن مسجدك لكن كسو جيض قرنيسا وأود عيني وفوائدك أيلاد هاي قراءة كر لو قارو وأكته قراءة القرآن كان مسجد كبح يسكر لو قارو والله إسلام جبير بن مطعم باكو إسلام صحابي أنتو زي إسلامين كهر بدر أيها قال لو تشبيه ويلو أسقوا دلايبا محابيستي مسلمين تقبتين كم مد نقضي ماكو كسو قاضي حوله وربا إنه مدح فرشو وديبا أو نبي إيا صحابة وكسي ديستو ويلكيس مساجد النبي وصوب قال حل مخربة نبي أخرنا هي صلاة سورة الطور صلاة المغرب ومد تجينا وطور بالنبي بالله عليه الصلاة والسلام نكان جبير ونعربت وقرشيا
واللغة يقانون فصيحة إلهنا ذكسي مركو مرة يصوبون عليه الصلاة والسلام أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون وحوري كاد قلبي أن يطير رواية في الصحيح وكان هذا أول ما وقر الإيمان في قلبي صحابي وكورني حلقوا أبوه الرئيسي إسلام قلبي أوتابطي قرآن كأو النبي أخونا هي الدخرين وحجوا الاستقراء الصبر والتقسيم باللو يقانا قاعدة آيات كبحان وذادو أو الترجيد والتقسيم أو الشرطي المنفصل وحا أو تقانان إذن وحصر باللو سمي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كاد قلبي أن يطير في رواية كاد قلبي أن يصدع وهذا أول ما وقر الإيمان في قلبي وكو إسلام ورسالة المسجد كبح يسوي وحطابته نبي محمد الصحابة oo salaad subax ku tukanaya meel miya jin wardoon oo adduunka laga soo xirxiray oo socon waayay oo leh war waxa aan kor u aadilanahay ee markaan madaxa qadama dambaaburo iyo falaaro u bilaaban aan baadhno ayaa la soo kulmay suuratu qulxiya lagaga sheekeeyay ka akhriye salaad subax oo nabigu tukanayo suuqa cukada agteeda meel nakhla la yiraahdo ayay ku islaameen ilaahina quraankiisa ku sheegay waa fariimaha quraanku uu bixinayo salaaduha ay bixinayaan ka baxaya masaajida iyo meelaha lagu tukanayo waxaan ku darayaa oo kale sayyidina Umar xilligii khaliifka ahaa salaadaha jahriga muslimiinta uu tujiyo waxa laga dhageysan jiray suuqa Madiino muwatta Maalik baad ku marteen suuqa Madiina laga dhageysan jiray akhraja Maalik fi muwatta'ihi an Abi Sahal وأسجى أذيركي أبي سهل عن عم أبي سهل بن مالك عن أبيه عمر وحوها كان يجهر بالقراءة في الصلاة وكنا نسمع قراءته عند دار أبي جهم بالبلاط وطأ كآخرية قراءة سيدنا عمر صلاتها جهرك الصبح جمعة عشاها مغربك وحانو كدغ يسنجري دارت أبي جهم يكتها لميش بلا الله يدادو وماشي حدود اللغو اوفين جيري عيد مصلحه او اهيد سوق ساريدو halkaasaan ka dhageysanay hada maxaa la yiri hawsh Umar uu sameeyay ninka sameeyay maxaa ku dhacaya hawsh sayyidina Umar uu sameeyay saxaaba ku ijmaaceen muslimiin isku raaceen ninkii diin ka dhigta ee yiraahdo codaygu dariskan maqashiinaya waa xidhan yahay ninka u doodana والله راعينا قانون ملزمة ابن سيدنا عفوا الإمام بن عبد البر يا وحول الله بكلا قاضى صلاتها السنة يا صلاة الليل كي يمرك إنه أن مساجد كودا تكان إنه إن ابن ما هذا السعودية أنا واحد كوخل دمان يكون أفهم بكه الله هي إنه ملهم أمد بوده أحاديث قصة أروت قراءة يعني لا يسكت لبن متكين ككلا يسند لبن mid walba aluu la faqaya la koodaya wuxuu waa salaadaha sunnada in isku goob ku tukanayna aniguna goori u tukanay aad goori u tukanayso hadaan quraanka citaali aad citaaliso hada baashi yelo bay noqon way isku dhici waynu wareerayna salaadahaas wuxuu ahadiisu khuseeyaan sidaasan culimadu kulliga ku hadleen barwaruntii naskaaba tusay laakiin wuxuu salaadaha maktubada ee waajibka ah sayyidina Umar iyo geyrkii wasaa'irul a'imma waxay ahaayeen هل إمام أمة تجينيا قرآن كنا وابحها هذا الكيس وحاكمه إنه يجي وكان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث وصف سامعه عمر عطيرا صادر تيتبع عدكيس وحقاري جري ماشو كوشي قراوي إلا قم مغلهاي قول يا نطي سيدنا عمر سوق قال لهم حيور الله سيدنا عمر ميكروفون بضوطا ادوغو جوج عدكان امامنا من نقونيسي waxaan tujinaya walaalkan sakaraad ka firaha laga hayo neefsan karin baa umada tujinay adugu codkaadi daris ku dhibaya sidaas ay oran lahaayeen sida ka muuqata dawarkooda hawsha ayada marka waxaan rabaa in aad la iskaga ilaaliyo xagga naad ogaataan diinkan islaamka
ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ilaashanay idinkuna waxaa la doonayaa in dadaalka rabbi idin saaree waajibka aad la timaadaan xumaha aad ka digtaan wanaagga isu kaalmaysataan dareenkiinna muujisaan fidnada hadda ay ku dhawaaqeen dhanna shar bay ka tahay dhanna khayr bay ka noqonaysaa laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum fidno walba iyo dhib walbay gaaladu la yimaadaan iyo tuqaadda carbeed iyo cajam faa'iidaan noogu jirta dagaalka hadda u sokeeye ka dhacay qudus iyo falastiin iyo ghaza ka socday muslimiin badan baa ku baaba'ay waa lagu wax noqday waa lagu naaftay laakiin faa'iidaa ku jirtay waa aragtay faa'iida iigu weynaan aan ka helay waxay ahayd netanyahu baa wuxuu yidhi haddii xamaas ay guulaysato oo tal abiib laga adkaado dowladaha carbeed iyo cajam way dumahayaan ma jiri doonaan bal u fiirsada halka asaga maxaa tal abiib isku xidha qaahiro iyo riyaad iyo camaan iyo dimashqa iyo bayruud isu ururiya shayaadinta carbeed meelahay fadhiyeen manaamiya daarul baydaa iyo jazaa maxaa isku xidhay gaalkii muxuu yidhi haddiina laga adkaado maanta oy xamaas adkaato ma jiri doono buu nidaam dambeed oo ka taliya meelihii ay ka talin jireen muxuu kuu sheegay in netanyahu iyo kuwan ay walaala yihiin oo isku mid yihiin 200 sano wadaadaha carbeed iyo cajamba ku xabeebteen war waxaan aad moodaysaan madaxweynaha ilmaha waa gaaladay u shaqeeyaan waa dabadhoona waa qowsaaro ha ku khaldamin waa laga dhageysan waayo yaa ku adimay xaqi asaga aha netanyahu baa ku adimay waa faa'iido shacabku inay fahmaan cudurka ayaa horta daawo ugu horeysa inaad xanuunsan tahay inaad fahanto ayaa ka horeysa inaad daawo doonato gorma daawo iyo dhakhtar aadaa nin xanuunsan baa lagu keeni dhakhtarkii aad dhihi sheekhu waan ku kari weynay horta bal quraan saaro oo waraysto oo ka dhaadhiciyo inuu xanuunsan yahay ku leeyahay marka ka dhaadhicisaan kadib baan ka xaynaynaa caamadii baa lagu kari nimankan wadaada madaxweynayaal ma aha muslimiin ma aha waxba idinkuma maqano dhibkiina iyo lugoydina wadaan gaaladii baa sheegaysa mana u jawaabi karna Netanyahu warkiisu waa run waxaa dhibi adduunka ka socda muslimiinta lagu baabi'inayo wanaag baa dhan kale kaga jira doqon ma garata ah inna rabbi latiifun lima yashaa wa huwa al-aliim al-hakiim marka sidaa loo ogaado sayidina xudayfa waxa lagu yiri reer banu israa'iil diintoodii waa nasaari yahuud diintoodii mahal maalin bay ka dhaqaaqeen mise wax kala jira wuxuu yiri maya tilaaba uga dhaqaaqeen buu kaanuu idaa umiru bi shay'in markii shay la faro oo khayr la faro maxay samayn jireen maysan samayn jirin xumaa laga reebi way samaynayaan fansalakhu min diinihim kama yansalikhu ar-rajulu min qamiisihi tilaaba uga tageen hawshan marka bidaari sibiq ay kugu bilowdaaba kugu gashaaba la yiri hawlahan yarka aadaan lagu wareegaysanayo iyo qiraa'ad banaanka u baxday orgigu oo inta ka weyn weeye hawla ka badan bay horaanba soo sameyn jireen gaalnimada reer Sacuud waxa kamid ah qaanuunka waxa leeyahay تعميم وزارة الشؤون الإسلامية تعميم وقانون كون عربية كلا كضاعتسن بمعنى إن شيء سيديه الله شيء وكون كلا كدامة قانون بوصوصر من حويله برلمان كان منتشر ورقتي صوصارين قانون كان إنك خلاف يقلب كاس يوم مراسيمي تعاليمي تعميمي أولها سيكون رجيستان قوم دون كل إسلام شيكته oo ka dhagar badan anigu ma garanay reer Sacuud iska ilaaliya inta aad adduunka ku maqasheen boqor Salmaan ina Salmaan baa ugu gaalsan ugu shaqul xun ugu liita xarameynka inaga yaala ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa ka qeyb badan muslimiin ha keeno iyagana ha dhaafiyo fariintaydu waxa weeye iska ilaaliya hawshaayada yaan lagu khaldamin bulshada muslimka ee Kenya joogtana
ha u diyaar garowdo raadka ka dhalan doona wuxuu ku dhawaaqay ina salmaan ha u diyaar garoobaan oo ha iska ilaaliyeen oo masaajidooda yaan la soo faragashanin waddankan xorriyad diineed baa ka jirta nin walba suu doona ilaahay u caabudaa la yidhi meeshuu doona wax ka dhisto salaadihiinna yaan la soo faragashanin ciddii soo faragashatana yac iska dhaho oo la hadloo la xaajooda waxaa ka